Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Automatic American English, the best college for learning English online. Kuso dhawaada macadka Automatic American English. Waa macadka rabno si automatica iskiis inaad u baratid luqadda insha Allah. Today we will take a beginner lesson. Magacaygu waa Axmed Siyaaro, Macallin Axmed. Aad baan idiin soo dhawaynayaa. Qofkii u baahan inuu online ku dhigto, nala soo xiriir. If you want to learn English online, contact us on our WhatsApp. Soo dhawaynayna insha Allah, ku caawinna step by step online waa lagu baran karaa. Arday badan waxay aaminsan yihiin laguma baran karo. Horta tijaabi, qaar badan waxay tijaabiyeen meelo aan shaqaynaan amba casharadii laga habsaamiyo amba aan la xisaabtameen. Laakiin at Automatic American English waxaan ku hubaa inaad helisid casharo tayo leh, la xisaabtan adag, also macallimiin fiican. So join us insha Allah. Let's begin the lesson. Aan bilaabna casharka maanta. Arday badan baa igu yiraahdo macallin sidaan sentaniska isku xiriirsiya. Hal sentence iyo sentence kale sidaan isku xiriirsiya. How can I connect one sentence to another sentence? So join me today. I'll show you how to do that with 3 words, okay? Maanta casharka wuxuu ku saabsan yahay connecting sentences. Connecting sentences. Waa maxay connecting? Connecting waxa weeyaan isku xirka. Connecting sentences. If you want to speak English and if you want to speak long sentences and paragraphs, you need to connect your sentences, okay? So, haddii aad rabtid inaad isku xiriirsid sentencyada, maanta waxaan qaadanaynaa 3 kalmadood, 3 words oo isku xiriirsin kartid 2 sentence si fudud. Laga yaabaa in hore u aragtay, but today we'll do extra practice. Number 1 waa but. Okay, kalmadahan and yo or yo waxa loo yaqaanaa conjunctions. Laakiin ha ka warwarin, don't worry. Inshallah we will take a look at each one. Way badan yihiin. Waxa jira however and also and therefore. Laakiin maanta we just need these 3. But and yo or, okay? But as you know is to show 2 opposite things usually. Marka but waxa loo isticmaalaa laakiin. Now let's take a look at the sentence. Hadduu akhriska kugu adag yahay, arday badan baan u dhignaa oo akhriska weligood English soo dhigan amba in yar soo dhigtay, weli waxa ku adag sida ereyada loogu dhawaaqo. So take a look, come see this. Xagga waxaan ku qoray he is tall. He is tall, but she is short. Marka wax badan baan sentence-ka aan ku baran karnaa. Qofka waliba beginner. He is tall, isagu wuu dheer yahay, but she, yadu, is short. She's short, okay? So xagga waxaa arkaysaa opposites. But 2 sentence baa isku xiriirsin kartaa sida opposite-ka u tustid, okay? The next one, he is tired. Isagu wuu daalay. He is tired. And she is energetic. She is energetic. Isagu waa mid amba qof daalay. Iyaduna waa qof energy iyo tamar badan leh, awood badan. Energetic waa qof energy badan leh, okay? Marka and waxa weeyaan iyo. Finally, is she hungry? Is she hungry or full? Marka kaasi waa su'aal. That is a question. Haddii jeer or waa ama waxa loo isticmaalaa markaad doonaysid 2 shay isbarbar dhigtid, 2 choice. Waxa amba waxa. So, is she hungry? Yadu ma qof gaajaysan baa oo gaajo dareemisa, baahi dareemisa, or full? Mise qof waxay tahay qof dareegsan, mi qadaysay, mi cashaysay, mi cuntadii bi cuntay. So, or baa loo isticmaalaa. All right? It's very easy, right? Pronunciation ka aan ku barano. Repeat after me. Get the bada. He is tall, but she is short. Number 2, he is tired. And she is energetic. Is she hungry or full? Inshallah waxaan rajaynaya wax badan ka faa'iiday. Page-ka ku xirnow, follow gare, like gare, sidaad u heshid 10 walba. Thank you so much. See you soon.